in ka badan 10 sano markii koowaad ayaa maanta shir uga furmay magaalada Laascaanood isimada waxgaradka iyo haldoorka bulshada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kaasoo qabanqaabadiisu ay ku bilaabatay si degdeg ah kadib markii boqolaal dhalinyaro ah banaanbaxyo masiir dalbashaha ay ka dhigeen fagaarayaasha gudaha ee magaalada xudunta u ah bulshada deegaankan waqtigan inay isku yimaadaan in ka badan 10 isimada dhaqanka oo kala aragti duwanaa 10kii sano ee na dhaafay waxay muujinaysaa bisayl xoog leh oo taabtay bulshada deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ayna hadda joogaan waqtigii ay tala midaysan isku raaci lahaayeen waxaan eegaynaa 4 caqabadood iyo 8 fursadood oo ku gadaaman wada hadalkan masiiriga fursadaha kow bulsho midaysan oo doonistoodu bislaatay ayaa madasha ku sugan waa fursad weyn oo qolo kasta dhinaceeda ay baadigoob ugu jirtay sanadihiina dhaafay laba hoggaankii dhaqanka oo midaysan toddobaadyo ka hor markii lagu baaqay shirka waxa aan sheegnay in hoggaanka dhaqanka ee goboladaas waxa dhaqan ay noqon karaan isku imaatinka guul weyn oo bulshadan gaarto laakiin maanta taasi waa la soo gaaray waana fursad dahabi ah oo labaad oo ay haystaan bulshada goboladan saddex magaaladii ugu muhiimsanayd dhulka aayihiisa laga tashanayo ayaa gacanta ugu jirta shacabka Laascaanood waxaa maamula dadka deegaanka mana socdaan adeegyo maamul oo Soomaaliland ka amar qaata afar dhalinyarada kacdoonka hormuudka u ahayd ayaa door xooggan leh korjoogtayna ka haya hoggaanka dhaqanka inaysan ka leexan jidkii dadku ay doonayeen ee loo soo dhintay shan ciidamadii ugu badnaa ee Soomaaliland ka amar qaadanayay una dhashay deegaanka ayaa soo galay magaalada haddii xabadi dhacdana waxa ay sahal tahay inay la wareegaan dhammaan agaga magaaladan ku dhow lix Soomaaliland waxay u muuqataa inay ka soo oodmeen dhammaan jidadkii ay horay u adeegsatay ee xaaladda goboladan taasoo ay sii dahqaaday in warbaahinta hadalla ay marinayaan toddobo Soomaaliland iyo dadka deegaanka waxay u muuqataa inay kala aamin bixeen wada hadal dambe oo dhinacyada dhex mara iyo ballanqaad siyaasadeedna aysan hadda suuragal ahayn waxaana hor yaalla Soomaaliland ballanka bixi Dr. Cali Khaliif ay ku samaysay Hargeysa xubno ka mid ah golaha wasiirada ee Soomaaliland iyo gudoomiyaha golaha wakiilada ee maamulkaas oo Laascaano ku sugnaa toddobaadkii la soo dhaafay ayaa guuldarro kala huleelay ugu dambayn maanta sideed fursad dahabi ah oo lagu soo celin karo midnimada iyo wadajirka Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliya ayaa gacanta ugu jirta odayaasha dhaqanka ee gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kosokow sideedda fursadood waxaa jira 4 qodob oo caqabada oo kuwa taagan oo saameyn kara shirkan kow weerar iyo dagaal ka yimaada Soomaaliland inta shirku socdo waa caqabad saameyn doonta balse dadka deegaanka qaarkood ayaa leh faa'iidada laftirkeeda ayaa ah in laga sii faa'iideysto laba faragelin Soomaaliland ay ku samaysay shirka si siyaasadaysan iyadoo adeegsanaysa shakhsiyaad shirka jooga warkeedana halkaa marinaysa waa halis abuuri karta fashilinta shirka saddex fulilaanta qodobada shirka ka soo baxa hore inkastoo ay tahay markii koowaad ee taladan xaaladdu ay si kadisa ku keento haddana meelmarinta qodobada aan loo fulin si dhaba ayaa marxaladda hoos u dhigi karaa afar qaabka aayaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn hoggaanka dhaqanka oo ku kala duwanaada maamul gaar ah oo hoostaga dawladda federaalka sida dawlad goboleedyada oo kale iyo sida loogu heshiinayo dhismaha iyo hoggaankiisa ayaa noqon karta caqabad kale oo yara shirka ugu dambeyn wax kasta oo ka soo baxa fashil u horseedi karta isku soo duubo xalka Laascaanood iyo aayaha gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa ku jira gacanta in ka badan 10 isin oo markii koowaad 10 sano kadib ku kulmaya magaalada Laascaanood halkan waa xudunta dadka deegaanadan ka soo jeeda dhammaan dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida iyo geeska ayaana si weyn shirkan indhaha ugu hayaa ma ogtahay maantaba inaad ka maarantid inaad tagto xawaalad haddii aad ku sugan tahay Yurub iyo Ameerika baysi waxa uu ka haqabtirayaa inaad lacag u diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga iyo goobtaada shaqada kala soo deg App Store-ka iyo Play Store-ka